السلام عليكم أصحابتك kusoo dhawaada channelkeena Somali Kitchen. maanta waxaan sameysanaynaa cabitaan yar oo fudud. cabitaankan waxaa la dhahaa bacda taraawix isku qabooji. waa wax yar oo fudud oo waqti ka qaadanaynin oo aad u macaan. kasaasoo noogu soo baxay quruxda badan. waxaa u baahan tahay timira, u baahan tahay xabad moos ah iyo loos iyo litir caano waaye. mashiinka juustum baa ku shiidaysaa waxa dhan hal mar. caanahana qandac ha noqdaan. caano qandaca la rabaa. iyo hal qaado custard powder-ka ah. taasaan isku shiidanaynaa hadda. haddana dabkaa saaraysaa wax yariis ah. waan shaandhaynayaa. iska shaandhay. waa diyaar. wax yaraan sugaynaa inuu noo soo karo. aadna ha u karkarinin. waa cabitaan yar oo fudud oo energy-na ku siinaayo. sokor iyo wax dhan uma baahna. hadhowna macaan buu kusoo baxayaa. timirta iyo mooska waa macaan. sokor dhan kuma darsan karaysid. haddaa rabtid chocolate kor uga darsan kartaa markaa ka dejisid. haddana glassaan ku shubanaynaa. isagoo kulula ku shubanaya koobabka fridge-ka la gashanay. waayo hadhow markuu qaboobo wuu fadhiisanayaa. marka weel kale haddana kuma shubi kartid. marka weelka lagu cabayo unbaa ku shubaysaa. isagoo kulul fridge-kaad gashanaysaa. markaasaa haddana fridge-kaanu gelinaynaa. meesha kore oo freezer-ka waaye 10 to 5 minutes. halkan waxaan ku haysanaa moos aan soo jarjaray iyo timir iyo lows aan soo burburiyo waaye. intaasaan kor ooga sharaxanaynaa haddana. sasa tartiib kor ooga sharaxanaysaa. hadaadan fruitska jeclayna chocolate ku dhex darsan kartaa.
كسهدنا ما شاء الله أصحاب تسود وهذا سبسكرايب شير لايك